الله naxariistay hogaamiyihii garabka siyaasadda ee Xamaas Ismaaciil Haniya ayaa maanta waxa laga qaadaya magaalada Tehran ee caasimadda waddanka Iiraan kadib dil shalay ay u geysteen Israa'iil. Ismaaciil Haniya Allah naxariistay waxa lagu la dugtay magaalada Tehran halkaasi oo la xiray hawada isla markaana aad loo adkeeyay ammaanka dalka Iiraan. waxna lagu wadaa in la geeyo magaalada Dawxa ee dalka Qatar halkaasi oo berri soolay lagu la dukanayo salaada janaasada isla markaana lagu aasayo. Allah uu naxariistay Ismaaciil Haniya ayaa ku geeriyooday gantaal laga soo tuuray meel ka baxsan Iiraan isla markaana ay ku bartilmaameedsadeen Sayuuniyadda Yahuudda ee hogaamiye Netanyahu ayaa raadinaya nafis oo isaga fujiyo cadaadiska dhinacyada badan kaga imaanaya kadib markii ciidamadu ay markaasi ka niyad jabeen dagaalka 10 bilood sirjirsaday ee ka soconaya marinka Gaza. qaar ka mid ah ciidamada Israa'iil ayaa isdaldalay isla markaana waxa qaar kale ay hub ka dhigeen kadib markii xaaladdu ay ku noqotay mid adag. Israa'iil ayaa iyada oo arintaasi ka markaasi doonaysa inay dejiso niyadda ciidamadeeda ayaa waxa ay dishay hogaamiyihii sare ee dhanka siyaasadda ee Xamaas Ismaaciil Haniya isla markaana uu ku sugnaa magaalada Tehran ee caasimadda dalka Iiraan. waxay sidoo kale dishay hogaamiyihii ugu sareeyay dhanka ciidamada ee markaasi Hezbollah oo ku sugnaa magaalada Beirut. gantaal ayaa isna lagu dhuftay maalinnimadii Talaadada guri uu ka deganaa magaaladaasi waxaana ilaa iyo goor dambe la baadigoobayay meydkiisa. Israa'iil Netanyahu oo xalay khudbad jeedinaya ayaa sheegay in ay dharbaaxa siyaasadeed oo xanuujisa ku dhufteen xulafada Iiraan iyo Xamaas waxaana ay sheegeen in aysan ka soo kabsan doonin. hase ahaatee xaaladani ayaa u muuqata mid khalkhal amni iyo dagaal la isku adeegsado hubka noocyadiisa kala duwan oo toos ah waxa laga baqdan qabaa inay geliso bariga dhexe oo haatan xaaladiisu aysan caga badan ku taagnayn ayaa dhinacyadu waxay haatan hanjabaad adag soo marinayaan iyadoo Iiraan hogaamiyaha ruuxiga ah ee Khomeini oo ciidamadiisa amar ku siiyay inay toos u weerari karaan Israa'iil. dhinaca Turkiga madaxweynaha dalka Turkiga Rajab Tayyip Erdogan oo goor hore hadlay ayaa sheegay in ay gudaha Israa'iil ka dagaalami doonaan sida ay kaga dagaalameen Liibiya iyo gobolka Nagorno-Karabakh ay isku haysteen Armenia iyo Azerbaijan. dhinaca markaasi Lubnaan ta Hezbollah waxa ay sheegeen in ay dagaal adag la geli doonaan isla markaana ay ka aargudi doonaan hogaamiyihii sare ay dileen. dhinaca Xamaas waxa ay sheegeen in ay u aargudi doonaan isla markaana dharbaaxa xanuujisa ay ku dhufan doonaan Israa'iil. Yemen dhankeeda kooxaha Xuuthiyiinta Yemen ayaa la soo warinayaa in ay ku jiraan diyaar garowgii ugu dambeeyay ee ay doonayaan in ay weerar ku qaadaan Israa'iil. dhinaca Mareykanku waxa uu wadaa digniino ku aadan in xaaladda la qabo waxaana uu sidoo kale mararka qaar oo Washington ay laga soo xiganayaa in ay doonayso in ay ka barbar dagaalanto Yahuudda waxaana ay sheegeen in ay danaha Yahuudda difaacayaan. bariga dhexe waxa uu agyahay goob hadda sii hulcisa. dowladda federaalka ee Soomaaliya oo soo saartay war saxaafadeed ay si kulul uga cambaareysay dilka loo geystay Allah naxariistay hogaamiyihii kooxda Xamaas Ismaaciil Haniya ayaa waxay soo jeedisay dalab culus oo ka dhan ah Israa'iil oo lagu eedeeyay dilka hogaamiyahaasi xilli uu ku sugnaa magaalada Tehran ee caasimadda waddanka Iiraan. jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya ayaa cambaareysay falkii Arbacadii shal Israa'iil ay ku dishay madaxii xafiiska siyaasadda ururka Xamaas Ismaaciil Haniya Allah naxariistay oo ka dhacay caasimadda Iiraan ee Tehran taa oo xadgudub ku ah sharciga caalamiga ah iyo bini'aadanimada ayaa lagu yiri warqadda. sidoo kale waxa la sii raaciyay Soomaaliya waxa ay ka cabsi qabtaa in ay sii kororto xiisadda ka taagan bariga dhexe taa oo horseedi karta xadgudubyo hor leh oo ka dhan ah dadka rayidka ah ayaa lagu yiri qoraal ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda. sidoo kale war saxaafadeedkani ayaa lagu sheegay in dilalka siyaasadeed ee fulinaysa Israa'iil ay sababi karaan rabshado inay sii xoogeystaan xiisadda ka taagan bariga dhexe. dowladda federaalka Soomaaliya ayaa u jeedisay beesha caalamka dalab culus oo ku aadan in tallaabo degdeg ah laga qaado maamulka Israa'iil. soo baxay dowladda federaalka Soomaaliya ayaa ugu dambeyntii waxa looga tacsiiyay ehelka asxaabta
markii shacabka reer Falastiin uu ka baxay hogaamiyihii kooxda Xamaas Allahu naxariistay Ismaaciil Haniya ay maamulka Israa'iil ay ku dishay magaalada Tehraan ee wadanka Iiraan doorka culimadu muxuu yahay marka aad soo timaadeen idinka sheegay dabcan laakiin ma aha oo kaliya anigu saan isleeyahay maanta culimadeena Soomaaliyeed inta isu yimaadaan oo deedna ay warqado ku qoraan kalimaad fiican inay ka tagaan ma inta in ka badan laga rabaa waana mahad celinaya culimada halkan fadhida qaar badan oo kamid ah muddo dheer baa reerahooda ugu dambeysay shirkii diasporaha ee Qatar baan ka wada qayb galnay haddana halkan ay joogaan marka xilligaas ay u imaadeen haddana halkan ay imaadeen ay ku mahadsan yihiin laakiin maalmahaas kaliya laga marro aniga waxaan rabaa culimadu war dalkan markuu khatar galo waligiis dad culimaa ilaahay ku badbaadin jiray taariikhda markaan dib aan eegno xorriyadiisii markay reer galbeedku haysteen dee culimaa uun ka gadooday oo dad culimo ah ay dad ay hagayaan ayaa ka dagaalamay hadday noqoto koonfur iyo hadday noqoto galbeed iyo meesha rabtaba ayaga ayaa arrintaas hoggaanka iska lahaa waxaan aniga aaminsanahay maanta marxaladda uu marayo marxaladdii culimadu ay ka dagaalameen ayuu marayaa tu la mid ah waxaa intaa aan sheegnay oo dhan baa khatar ku jirta mar hadday diintiina khatar ku jirto midnimadii iyo ummadnimadii oo dhanna khatar ku jirto caalamkiina aan aragnay oo aan naxariiso oolin meeshii oo laynaga tegay oo innaga ay inoo taallo waxaa loo baahan yahay culimadu roolka ay leeyihiin aad buu u fiican yahay laakiin mid badbaado ah oo intan ka weynaa loo baahan yahay oo nafhurnimo ah ayaa la rabaa inay intay culimadu isu yimaadaan warka sheegaan oo fatwada inoo sheegaan ay nagaga tagaan meehe waxaan ka rabnaa culimadu inay roolkan ku ka weyn ay la yimaadaan oo ay ummaddan kiciyaan oo ay hurdada ka toosiyaan oo ay miirkooda u soo celiyaan ayaa la rabaa waxaa la rabaa inay horkacaan masiiradan jihaadka ah ee lagula jiro khawaarijta inay horkacaan ayaa la rabaa waxaa la rabaa inay culimadu ku daysadaan salafkoodii qiimaha badnaa ee ka shaqeeyay hawshaas ee u soo jihaaday ee u soo dhintay ee weligeed ummadda sidaas u soo badbaadin jirtay ee manhajkii ambiyada ilaahay ah taas in lagu daysado ayaa la rabaa cid aan idinka ahayn oo dalkan u maqanna ma jirto dalkan waxaa u maqan culimadiisa ayaga aqoon-yahanadiia ayagaa dadkii miyirka qabaya ayagaa macalimiintia ayagaa wax haysta ayagaa ummadda ee dhagahooda iyo qulubtooda haysta ayagaa mekanismkii wax lagu daweyn jiray haysta oo ilaahay uu baray marka intaba ayagaa weeye marka culimada waxaa waaye iyakaa laga rabaa ma aha qofku markuu dowladnimo ka hadlo sheekhu markuu dowladnimada ka hadlo iyo dowladnimada in la taageero iyo dadku inay dowladooda ilaashadaan in laga hadlo yacni in loo fasiro inuu yahay buuq iyo qof laga dhex hadlayo iyo qof guulwada ah waan ognahay waxaasoo dhan waxaa abuuray dhibaatooyin badan baa keenay haddii ay mararka qaarkood ay xilliyadaas ay marayaan dadka qaarkood dadkani sidaas ma marayaane dowladnimadii in la baadi gooba ayaa waajiba hadda oo laga rabaa dadka in lagu dowladnimadii la raadiyo ayaa lagama maarmaana marna kuma qanacsanin meeshaynu marayna maanta suurtagal maaha waa inaynaan ku qancin waa inaan ogaano inaan meeshaas gabaadiirta cidlada ah inaan fadhino kulligeen waxa laynaga rabaana waxaa weeye inaan gaadhno ummadaha oon ragbiga gaadhnaa laynaga rabaa sidan aan hadda nahayna kuma gaari karno maxaa jira innagii baaba halis ku jirna